ilaa imikan maxaa uga suurtoobay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia wafdigu uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga oo ku sugan dalka Ethiopia maxay tahay fariintii ugu adkeed ee Turkiga ay u gudbisay Ethiopia maxaa ka jira in dawladda Turkiga ay dadaal badan ay ku bixinayso sidii meesha looga saari lahaa gabi ahaanba heshiiskiisa afgaradka ahaa ee Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Ahmed kol hore ay kala gaareen ee keenay in meeshii ugu adkeed uu gaaro xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kayga oo ka mid noqdo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaal aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga shakhsiga ugu awoodda badan xukuumadda Rajab Tayyip Erdogan Hakim Fidan oo soo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia ayaa kulamo kala duwan isaga iyo wafdigiisa waxa ay la qaateen madaxda ugu sarreeyay Ethiopia oo uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyo wasiirka arrimaha dibadda dawladda Ethiopia kulamadan ayaa diiradda lagu saarayay sida xogaha ay sheegayaan xal u helidda khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo sidii meesha gabi ahaanba looga saari lahaa sida lagu soo hadal qaaday kulamadii ugu dambeeyay ee ka qabsoomay Addis Ababa heshiiskiisa afgaradka ahaa ee Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay gaareen bilowgii sanadkan 2024 ee carada badan dhaliyay keenayna inuu meesha ka baxo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya Hakim Fidan ayaa dawladda Ethiopia waxa uu u sheegay in marnaba aysan ka gacan laaban doonin dawladda Turkiga cid kasta oo ku soo xadgudubta biyaha Soomaaliya wuxuuna sheegay inay meel adag ka taagan yihiin qadiyadda midnimada Soomaaliya isla markaana ay ilaalinayaan heshiiskii dhinaca difaaca ku qotomay ee kala gaareen Soomaaliya iyo Turkiga taas oo niyad weyn iyo quus ku beertay dawladda Ethiopia Hakim Fidan ayaa sheegay in dawladda Ethiopia looga baahan yahay madaxdeeda in qorshe dhaama waxa ay hadda ku socdaan ay la yimaadaan wuxuu si aan ka gambasho lahayn u qeexay in wixii ka dambeeya bishan Agoosto dawladda Turkiga ay dadaal badan ku bixin doonto in gabi ahaanba ay awood u isticmaasho cid kasta oo isku dayda dhaqangelinta heshiiskii sharci darrada ahaa ee kala gaareen Somaliland iyo Ethiopia kaas oo keenay in siyaabo kala duwan looga falceliyo Hakim Fidan waxa uu sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in dadaalada ay Turkiga ku dhexaadinayaan Soomaaliya iyo Ethiopia ay natiijo miro dhal ah ka soo baxaan wuxuu Ethiopia ku cadaadinayaa in talaabooyinka ay uga sii dari karto xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ay qaadaan fariintan digniinta xambaarsaneed ee Turkiga ay gaarsiiyeen Ethiopia waxay ku soo aadaysaa xilli la diyaariyay ciidamada Turkiga ee xeebaha Soomaaliya ka howlgalayay ka gadaal markii ay meel mariyeen baarlamaanka dalka Turkiga mooshinkii uu u gudbiyay madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan waxaase qorshuhu uu yahay in maalmaha soo aadan ay si toos ah ugu soo ambabaxaan xeebaha Soomaaliya iyaga oo si toos ah howlgallo uga fulin doona gaafureegi doonaana xeebaha Soomaaliya wixii warar ay ku soo kordha isha ku hay page-kayga halkan ayaad kala socon doontaan nabadgelyo